dugsiga sare ee Xaaji Cali Biixi ama dhismaha cusub ee dugsiga Xaaji Cali Biixi waxaa la dhagax dhigay 1 bishii January ee sanadkan wuxuu ahaa riyo balse maanta xaqiiq ayuu noqday ugu horeyn mahad idil oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh marka kadibna waxaan u mahadcelinayaa mujtamacii iyo waalidiintii iyo ganacsatadii iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa iyagu runtii suurta geliyay dhismahan inuu xaqiiqoobo waxay fariinteeda daaran tahay ugu horeyn mahadcelin waxay daaran tahay inaanu u dabaaldegno blogii koowaad oo dugsiga Xaaji Cali Biixi uu dhismay iyadoo ay harsan tahay qaybo kale oo ka tirsan dugsigani wuxuu astaan u noqon doonaa horumarinta iyo tayeynta waxbarashada gaar ahaan gobolka Mudug Gaalkacyo waxaad la socotaan wadankeena burburka iyo dhibaatooyinka ka jira inay sal u yahay jahliga hay'adda tadaamun oo magaceeda ku hadlayo waxay dhawaanahan ka shaqeynaysaa oo laga yaabo baraha bulshada inay aad ugu badnayd la dagaalanka iyo ka hortagga abaarta iyo saameynteeda balse waxaan aaminsanahay abaar laga bixi maayo gaajo laga bixi maayo macluul laga bixi maayo haddii aan aqoon la helin haddaan tacliin la helin haddaan ubadkeena aan badbaadin iyadoo abaarta laga shaqeynayo oo dadka la waraabinayo oo la quudinayo ayaa waxaa laga maarmaan ah inay haddana horumarintu ay socoto ay ugu horeyso tacliinta iyo waxbarashada taasa waxaa la rabaa marka inay noo noqoto mabda asaasi u ah waxyaabaha loo aasaasay tadaamunna waxa ugu muhiimsanaa runtii tacliinta ayaa ugu muhiimsanayd iyo waxbarashada inay hirgeliso waxaana la soo saaray arday badan oo kumanaana sidaas waxaa ku timid marka mashaariicda kale ee haday noqoto ceel la qodo iyo abaar laga hortago iyo caafimaad maxaa yeelay arday aan caafimaad qabin arday aan biyo haysan wax ma baran karo laakiin tacliintu waxay tahay waxyaabaha asaasiga ah waana inta yar oo hadda aan ifsanayno tacliinta ah iyadoo tacliinteenu aysan ahayn mustawihii iyo heerkii la rabay haddana inta yar ee la sameeyay ee dadka muxsiniinta iyo dawladda iyo bulshadaba ay iska kaashadeen waxay soo saartay rajo iyo qurux badan oo hadda maanta ka jirta waxaan marka bulshada ugu mahadcelinaynaa inay mashruucan qayb weyn ka ahaayeen mashruucan waa mashruuc isku tashi ah waa mashruuc bulshadu ay wax ka abaabushay isla markaana ay wax ka hirgelisay anoo magaca tadaamun ku hadlaya iyo bahweynta Xaaji Cali Biixi waan u mahadcelinayaa dadkii muxsiniinta ahaa ee iyagu wax ku darsaday dhismaha iskuulkani magacyadooda ma kala gaaro laakiin waa dad runtii aad u khiyaar u ah oo aan rajeynayno inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo tacliinta iyo horumarinteedana waa acmaasha ugu fadliga badan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado farintaas koowaad waa mahadcelin farinta labaad waxa weeye mashruucan tacliinta ay waa mashruuc balaaran mana ahan wax ku filan kaliya dhismahan 8 fasal hadda iyo 8 musqulood la dhisay ma ahan hadafkiisu wuxuu ahaa oo targetkaygu waa ilaa 4 fasal in la dhiso si arday badan oo soo kobcaysa oo hadeer soo koraysa loogu helo deegaan ku habboon waxbarashada oo ay ku baran karaan saasa marka dhismahan blog koowaad ayaa dhameystirmay waxa dhiman qaybaha fasalada ilaa 2 kala blog qaybihii maamulka waxaa dhiman laboratoriyaashi waxaa dhiman meelihii kombiyuutarada ardayda ku baran lahaayeen iyo teknolojiyadda casriga ah waxaa dhiman inaanu ardaydeenu u fududayno environmentii ay ku nafisi karaan isla markaasna ay kaga maarmi karaan waxa weeye inay u hiloobaan ama ay waxa weeye u baahdaan inay meelo kale oo aan munaasib ahayn ku ciyaaraan waxaasoo dhanna waxa weeye waxay ka qayb qaadanaysaa ardayda kubcooda garaad midka aqooneed midka akhlaaq intaba sidii markaan u ballan qaadnay markii yabooha la sameynayay iyo deeq runtii ugu horeysay markaan sameynaynay October sanadka 2021 iskuulkan wuxuu xaqiijin doonaa haddii ay bidmo waxbarasho tayo leh wuxuu xaqiijin doonaa sidoo kale baahida waalidka ay tabayaan maxaa yeelay noloshu waa isbedelaysaa maalmaha ka dambaysa waxaan rabnaa dadka waxa weeye bulshada Gaalkacyo ku nool inaysan u baahan inay u safraan waxbarashada oo gobolka kale ay u aadaan ama aysan Soomaaliya waxaan ka wadaa banaankeeda aysan u safrin balse ardaygu uu ku helo waxbarasho tayo leh magaalada uu ku nool yahay taasa hadafkeena u yahay
waana sidoo kale mar kale ayaan mahad celinayaa howlwadeennada injineerka iyo shirkadda runtii dhistay iyagana waa u mahad celinayaa injineer maxamed maxamuud ow faarax oo isaga ahaa injineerkii iskuulka ka baxay ahaa waana productigii iskuulka waxaan rajeynayaa iskuulkaas isaga uu maanta uu dhisay sida qolxba uu dhisay in arday badan oo iyaguna mashaariic kala duwan wadanka qaban doonta wadanka hogaamin doonta aad baad u mahadsantihiin ismihii qaybtii koowaad waxa weeye bulshada waxaan wargelinaynaa inuu dhammaaday in balogyadii kalena ay hareen inuu deerkii haray welina waxa weeye contributionkiina iyo kaaladiina iyo qayb qaadashadiina ay muhiim noo tahay ilaahay waa mahad iska leh maanta waxaan joognaa dugsiga sare ee Xaaji Cali Bixi casriga ahaa oo gaalkacyo ay maaragtay daafurkiisa markhaatiga ka ahayd aakhirkii sanadka hadda dhammaaday waxaa ilaahay mahadiisa January shaqadii la soo bilaabay in soo ilaatay wajiga koowaad oo ah in blogga koowaad uu diyaar yahay Xaaji Cali Bixi si la mid ah sida gudoomiyaha jamciyadda Tadaamun uga mahadnaqayno dadaalka uu ku bixiyay in waalidka iyo magaalada gaalkacyo ay helaan waxbarasho tayo leh lagana bilaabo dhismayaasha ayaa mar uga mahadnaqaynaa hogaaminta nagu hogaamiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah hadduu alla idmo kaalinta ay geysteen reer gaalkacyo iyo dadka badan ee muxsiniinta ah oo hadda halkaan magacooda aan ku soo koobi karin in ay wali insha Allah sii taagnaato mashruuca wajiyaasha dhowrka ay soo socdaan ay ka qayb qaataan hadduu alla idmo waxaan ku dari lahaa waxbarashada gaalkacyo ama Soomaaliya guud ahaan waxay ahayd ka fursan waa waxbarasho dhacaysay ama maartay ka jawaabaysay ba ahayd baahiyaha degdega ah markaa jiray maanta waxa loo baahan yahay in waxbarashada ay noqoto waxbarasho casri ah la shaqaaleeyso dunida inteeda kale ardayda iyo duruufaha ku xeeran iyo caqabadaha ka taagan maadooyinka iyo barashadoodana in laga jawaabo ayaa laga maarmaan noqotay waxa la rabaa marka waxbarashada si loo casriyeeyo inuu iskoolkan kow u noqdo dhismaha in laga bilaabo casriyeynta waxa iyadana siyaasadda jamciyadda Tadaamun iyo dugsiyada Xaaji Cali Bixi kamid ah qalabayntiisa inay noqoto mid ka duwan kuwii hore ee systemka hore waxa kale oo iyadana la rabaa systemka uu ku shaqeynayo habka ardaydu wax u baranayso inay noqoto hab challenge gareynaya waxyaabaha ardaydu ay ku mashquuleen habkaas oo soo jiidaya in ay dunida uga faa'iideystaan insha Allah sida ugu haboon waxna u bartaan lana tartamaan qeyrkooda hadduu Ilaahay yiraahdo